Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibada ku xidhan kanaalka hoyga bulshada kusoo dhowaada mowduuceennii caawa haddaad ku cusub tahay kanaalka fadlan subscribe noo saar kuna soo biir kana mid noqo asxaabta ku xidhan gambaleelkana furo si barnaamijyadu marka ay soo dhacaanba aad ula socotid fadlan haddii aad channelkeenna hore aadan ugu jirin fadlan subscribe noo saar kuna soo biir kana mid noqo asxaabta ku xidhan channelka hoyga bulshada waad mahadsantihiin asxaabta qaaliga ah لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا mowduuceena maanta waxa uu diiradda saarayaa xaggee ayuu ka soo unkumay taashka cad ee aroosyada markii ugu horreysay taariikhda taashka cad maanta inta ugu badan aroosyada dumarka caalamka ku nool ay u soo xirtaan wuxuu arooskeedii usoo xiratay markii ugu horreysay Queen Victoria markii uu guursaday boqorkii Ingiriiska Prince Alberta bishii Febraayo 10keedii sanadkii 1840 sababtu waxay ahayd cadaanka oo ahaa midabka ay xiisayso boqoradu wixii waagaas ka dambeeyay indhaha gabdhaha caalamka ay qabatay labiska Queen Victoria ilaa maantana gabar kasta waxay ku adkaysataa in arooskeeda loo xiro taashkaas cad ama marakan cadow eeg oo cadaan ah iyadoo isweydiin halka uu ka yimid asalkiisu balse mowduuceena inaad maanta ku barata ayaan rajaynayaa walaashayda Soomaaliyeed dalalka Hindiya, Shiinaha iyo Vietnam way qaateen fikradda ah in taashka ay wax ka bedelaan waxay midabkiisa ka dhigeen guduud ama casaan maadaama guduudku dhaqankoodu sumad u yahay farxad iyo yadidiilo fiican Soomaalida iyo Carabta oo ah dad ilbaxnimadoodu ay gaabis ku jirto waxba kamay bedelin farsamadii Victoria waxayna u qaateen sideedii waxaadna arkaysaa aroos walba oo gabar Soomaaliya ay leedahay inay taash cad xidhato iyo kuwa Carabtaba Ingiriiska ay ka soo jeedo Queen Victoria diin iyo dhaqantoona ma wadaagno ee talo maxaa diiday in gabdhaheenu ay labiska guurka uga daydaan saxaabadii ay ka soo gaarnay diinteena iyo dhaqankeena suuban iyo sidoo kale ayay dhaqanka suuban ay haystaan Soomaalideenu haddana ay soo xirtaan xijaabka iyo sharciga diinteena Islaamku banaysta iyo dharkeena asturan hidaha iyo dhaqanka iyo wixii la mid ah sidoo kalena ay maskaxdooda ka soo hindisaan dhaqamo cajiib ah oo markaas laga kaftoomayo taashka cad sida aan isleeyahay damiirka nin rag ah ma aqbali karo in xaaskiisa loo xidho shabaqa duraaxada ah oo loo xiri karo xaaskiisa indhaha dadka ayna wada qabtaan maadaama aysan hayn gabadhu badeecad la suuq geynayo ayna tahay boqorad loo galbinayo qasrigeedii taluma jirtaa taash asturan hadduu jirana maarkee maxaa ku dhacay waxaan kugula dardaarmaya inaad raacdid jidkii asxaabtii rasuulka iyo sidoo kale dhaqankeena Soomaalida gaar ahaan ayeeyo ka ayeeyo intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa mowduuceena caawa xoogay hargabna ugu jira mowduucyadeenii kala gaabis ayaa kugu yimi balse caawa laga bilaabo mowduucyadeenu taxano ayay noqon doonaan halkaas ayayna kasii socon doonaan intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa oo walaalkeen oo idin leh fii amaanillaah